madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta mar kale waxa uu hortagay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya isagoo halkaasi ka jeediyay khudbad dhinacyo kala duwan taabanaysa oo kaga hadlayay xaaladaha siyaasadeed ee dalka gaar ahaan amniga iyo doorashooyinka. Waxa uu sidoo kale madaxweynaha carabka ku dhuftay rabshadihii ka dhashay muddo kororsigii baarlamaanka ay u sameeyeen. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu dambeyn kulankaasi waxa uu ka sheegay in dib loogu noqonayo heshiiskii doorasho 17 Sebtembar isla markaana si rasmi ugu wareejiyay doorashadii amnigeeda ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan, waxaana la rabaa in ammaanadooda loo ilaaliyo, dimuqraadiyaddooda loo adkeeyo, dowladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa qori isku dhiibka oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado, boroseska aan lagu mashquulin, qof walba kaambeynkiisu galo, nasiibkiisa uu qabaa, dee qof walba ilaahay wuxuu qadaray yuu heli, saas la isugu dhiibo xilka. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan dhammaantiin idinka codsanaya idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cakiran ee aan ku jirno inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebtembar 2020. golaha sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh ra'iisul wasaaraha. waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn. intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa cod gacantaaga ku meelmariyay dib ugu laabashada heshiiskii 17 Sebtembar, waxaana natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. oo codaynta aan isdegeysanno xildhibaanada, codaynta sidaan ayay u dhacday. heshiiska 17 Sebtembar in dib loogu noqdo wax ka aamusay ma laha, xildhibaan diiday ma laha, waxaa ogol u codeeyey 140 xildhibaan. sidaas awgeed waxaa loo noqday heshiiskii 17 Sebtembar sidaasuu ansax ku yahay. intaasi kadib madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u mahad celiyay xildhibaanada golaha shacabka siday u meelmariyeen heshiiska doorashada 17 Sebtembar. gudoomiye waa mahadsantihiin, waa mahadsantahay adiga xildhibaanada sharafta leh. waxaan ku faraxsanahay aan idinkaga mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh inaad ku soo biirteen kalaabka tanaasul oo aad ummadda Soomaaliyeed u tanaasulsheen. haddaba si aan waqti badan nooga lumin, dalkana aan ugu horseedno doorasho si xasilooni ah ku dhacda lagana wada qayb qaato, waxaan ra'iisul wasaaraha u xil saarayaa qabanqaabada iyo martiqaadka shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah iyo gobolka Banaadir si loo meel mariyo qodobadii lagu heshiiyey 17 Sebtembar iyo kii 16 Febraayo ee magaalada Baydhabo oo aan wax shuruud ah aanan lagu xirayn insha Allah. Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV Muqdisho.